عليكم صاحب يعني مركز تاجني كجوجتان kusoo dhawaada channelka Nuruddin Maxamed fadlan haday tahay markii kuugu horeysay channelka ka soo booqato fadlan subscribe saar aad iyo aad baa maastay maanta waxaan joognaa hadii aad hore u soo daawatay tuulada koowaad ee Saamaleelka maanta waxaan ku sugannahay tuulada labaad ee Saamaleelka ku soo xigta halkan waa Kalabeyd waxa dadka inta u badan waxay ku soo jeedaan maxaa ku dhacay shaqo taasi oo ah in ay ka shaqeeyaan kastanka Kalabeyd kasako imka waxaan joognaa halkan oo ah airportkii hore ay lahaan jirtay tuuladani inta ka bacdi waxaan tagi doonaa caawa oo aan ku sugnaan doonaa tuulada Saamaleelka bal waxaan soo ogaan doonaa dadweynaha Saamaleelka oo soo wareysan doono hal midna aan ku daray waxa jirta casho ka duwan cashooyinka kale oo ay cunaan dadka Saamaleelka u gaarka cashadaas oo ah casho magaceeda loo yaqaan Janantri taasoo ah deedi ka hor dhicma maaye insha Allah soo daawan doonaa laakiin halkan aan ku sugannahay imka waa towerkii laga maamuli jiray diyaaradaha markii ka cayaan halkan waxay ku caan tahay laba shaqo oo ah Saamaleelka iyo maxaan ku raadayay ii sheegeen shaqo laga qabto halkan magaaladan oo kastanka in laga shaqeeyaa marka bal waxaan sii doonaa caawa kastanka iyo dadku si Saamaleelkii u soo jeedaan iyo dadyo waxaan arki doonaa la kulmi doonaa in badan soo jeeday oo aan habeen indha saarin bal marka waxaan leenahay namasha imika waxa soo gaadhnay gudaha magaalada oo aan doonay bal inaan dhalinyarada halka ku ganacsata aanu ka wareysano Saamaleelka iyo waqtiyada badan ay soo jeedeen bal waxaan noo soo qaban doonaa mid kamid ah dhalinyarada halkan ku nool bal la soo daawado imika halka waxay la taagan mid kamid ah dhalinyarada halka ku ganacsata oo bal horta soo dhawaysaa soo dhaw channelka Nuruddin Maxamed adoo magacaaga inoo bilaabay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Ibrahim si kaliya laban soo dhaweeyaa asxaabta marka tuulada inta badan waxa la sheegaa in dadka badan soo jeedaan adna waxa kamid tahay dhalinyarada soo jeeda bal imisa sana soo jeeday wallahi in badan baan soo jeeday hadda shaqadaydu waxay ku xiran tahay Saamaleelka talabaad meesha customer waxa weeye habeenkii badanaa dadku yimaadaan oo gawaarida qaadka baxaysi waxa ayaan alaabta kiibiha marka muddo ma noo qiyaasi kartaa bal inta sano aad soo jeeday bal ee xaqan aad ka shaqeynaysay in ilaa imisa sano ku qiyaasi kartaa wallahi qiimiga horta ilaa 3 sano waan soo jeeday habeen indhama saarin hurdo may habeenkii meelaha salaada subax markaan soo tukanayo baan ayaan xidhaa meerda way waxaad naga dabageysaa halkan waxa jirta casho la yiraahdo magaceeda Janantri oo u gaara dadka Saamaleelka kaliya oo cid kale aan cun bal cashada naga dabagey waxay ka kooban tahay iyo waqtiga soo baxdo horta way jirtaa cashooyin badan baa jira laxo xilliyada dambe la dubaa jira laakiin cashadan Janantriga la yiraahdo waa cashada xilliga marka cashooyinku dhamaadaan maaragtay ayaa iyada la bilaabaa marka Janantri saasa lagu bixiyo waa casho iyadoo kaliya soo baxdo maxay ka kooban tahay bal cashadaasi oo soo kartaa asxaabtu u sheegi kartaa cashadaasi waxa weeyaan horta basti macaroni la yar macaaniyo waxaan ku leeyahay cuntooyinka kale ka yar macaan marka waxaan maqlaynay wallahi waa cunto kullo waxaan ku leeyahay asxaabtu aad bay dadku taageeraan sax waxa la igu sheegay saan maqlay inkastoo marar badan ay miday in cashadan lagu kariyo maraq halkii suugada laga sameyn lahaa horta way jirtaa horta inkastoo aan anagu marka online aanan la joogin laakiin wallahi horta cunto iska macaan ma garanaysa marka wallahi waa baasto iska marka adoo Saamaleelka dadkan cashadan waxay u gaarto kaliya dadka Saamaleelka kaliya Soomaa oo ana ilaa xilliga cid kale ma soo jeeday horta inkastoo ina badnayn bade waan yaro kooban ma garanaysa marka dadkaas markaas waqtiga jooga ayaa waxaan ku leeyahay marka cuno oo waa ma badna talabaad cunto markaaba la dhameeyay weeyaan aan la soo aad iyo ma soo taasoo nagala qeyb hadda waxaan la kulmay qofkii labaad ee dhalinyarada oo kamid ah dhalinyarada magaalada ku nool oo aan su'aalo weydiin doono kusoo dhaw channelka Nuruddin Maxamed oo magaca ku bilaabay waan ku dhawahay channelka Nuruddin magacaygu waa Maxamed Faarax waxaan ku noolahay Kalabeyd waxaan noo sheegtaa magaaladan in badan dad ka soo jeedaan oo habeenkii Saamaleelka marka bal see looga soo jeedaa maxaa lagu soo jeedaa maxaa kamid ah horta magaaladan waa magaalo ganacsiyeed niyo Saamaleelkeedu badan yahay qof walba wax ku soo jeedaa dad qaad bay ku soo jeedaan dad meherad bay ku soo jeedaan horta wax walba lagu soo jeedaa habeenkii magaaladan adu bal imisa sanaad soo jeeday oo aan habeenkii seexan niyo horta in badan wallahi ilaa
2 sano habeen iyo maalin lama seexdo waayo maalintii baan in yar seexda maalintii baa xoogaa seexataa in yar laakiin toban badan waa shaqaynaysaa habeen iyo maalinba meherad baan haystaa meheradaasaan habeenkii soo jeedaa maalintiina gelinka dambe intaa gelinka dambe aan hurdaa waa si wanaagsan aad baan mahadsantahay haddana waxaa soo qabtay qofkii saddexaad ee nagala qayb geli doona kusoo dhow walaalkii magacaaga adoo ka bilaabaya walaal waan dhowahay waxaa la yidhaha maxamed muuse bede maaweel maxamed waxaad noo sheegtaa magaaladan bal sida looga sahmleelo iyo bal nooga yaruube walaahi saamliilkiisa badan ninba waxaa soo jeeda nin meherad soo jeeda nin xamaala nin bariis xoosada hawluhu safar badan sax marka habeenkii inta badan baa la soo jeedaa habeenkii waa la soo jeedaa meelaha ilaa iyo waxaa la seexdaa 4 dalbanimo habeenkiina 10 soo jaato bilaabma meelaha sax bal adigu imisa sanaad ku qiyaasaysaa intaa soo jeediyay ama shaqaynaysa ama hawlo kale aad qabanaysa imsaad ku qiyaasi lahayd wallaahi waa 2 sano meelaha 2 sano oo dhan baa habeenkii soo jeedaa maalintiina hurdaa maalintiina hurdaa si wanaagsan aad iyo aad buu maastaa kusoo dhow janaalka nuuridiin maxaad adoo magacaaga inoogu bilaabay maxamuud cabdi maxamuudo maxaad baa tilmaa maxamuud maxamed cabdi waay maxamuudo kalabeer waxay ku caantahay saamileelka in habeenkii la soo jeedo waxyaabo badan baa lagu soo jeedaa aduu bal maxaa ku soo jeedaa anigu waa gurguurtaa oo gacmaha ku socda anigu waa gurguurtaa waa kana meeshaan ka shaqeeya ku xamaalad sax markaa waa ka shaqaysaa meesha waay imisa sanada seexan habeenkii soo jeedaa aad shaqaysaa dee adu ilaa dhowr iyo 10 sano ilaa imisa qiyaasta ilaa adu meelaha waxay noqonaysaa 12 sanadee 12 sano habeen dhamaa saarin waa si wanaagsan habeen dhaaf iska taa adigu habeen uma soconaysaa waxaad noo sheegtaa dadka inta badan duwaab baa cuna adima ku qabsadaysa bay xagga duwaabka weli xagga imu soo mar duwaabkaas sawta habeenkii markad baa igu ridaadmay abti waxaa kusoo dhawaataa janaalka nuuridiin maxamed adoo magacaaga inoogu bilaabaya maxamed faarax baa la idhaha kuwa ku magac dheer maxamed samtel samtel maxaa lagugu bixiyey alla samtel waxaa laigu bixiyey horta halhays baan lahaa sax halhayskaasoo ah waxaa waa samtel baan 4 saac odhan jiray in muddo aan magacan weysta waxaa ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada ama kalabeer kalabeer nin badan waa laga soo jeedaa habeenkii adu waxyaabada ku saamilisha waxaa ka mid al dee horta niyo saamileelka waa wax jira dadka qaarna duruufa badaa dadka qaarna duruufta ma bado waa dad iska soo yar intay dee yar qaylaan is odhanaya ha dhowto adu dadkeed ka mid tahay dadka iska qaylo dadka iska qaylun baan ka mid ahay marka qaylo biyo raaci wax la yidhaha baa jirta ood yar biyo raacinaysayo biyo falalkaa dambe biyo raacinta qaadirada dadka ugu wacan ma jiraa shayga duwaabka la yidhaha dadka cunaa adigu waa jiraa duwaabku waa wax jira laakiin aan weli ma arag laakiin dad arkay oo ka sheekeeyeyna waa arkay qaar waxay ka odhanayaan islaam weyn buro baa soo yaa ku soo dul fadhiisa habeenkii adigoo fadhiya oo saa hurda saada adoo hurda laayo khofrinaya yaa ayuuba madaxa kaaga fadhiisanaysaa waa baruur intay legana ma qaadi karis midna waa adigaa yidhi adigaa caburay ma garatay saamileelka aduu sanaa soo saamilisha soo jeediy saamileelka taan waxoogay waa soo jeedi meelaha 4 sano shaqmalaa waa soo jeedi 4 dama oo aan shaqaynaysaa aan kun la qaylisay taha صح marka imisa saaxad imisa saacadood habeenkii alda inta saacadood horta qofka bini'aadamka wuxuu saacan karaa 6 saacadood ba ka badan ba صح aniga 6 saacadood caadi baan u helaa oo maalintii wad ka heshaa adu habeenkii صح habeenkii 6 saacadood waa ka helaa 12 ilaa wixii ka dambeeyay ilaa 6 subaxnimo caadi ana aad baa maastaa aad iyo aad dhamaantiin hadda ka horta nala soo gaarto aad iyo aad baa maastiin caawa in badan waa aragteen video badan oo soo jeediyay waqti badan oo far badan soo jeediyay habeenkii saaxan tuuladan kalabeer waxa ku caantay saamileelka saan hore bay idinku soo sheegay aad iyo aad baa maastiin maadaama halkaan nala soo gaadhay muuqaalka intaan muuqaalka ku xigo kulmi doono waxaan leenahay aad iyo aad baa maastiin